بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر هذا القناة يوتيوب أصلح أبسا في ما توحن إذن سوق بنايا قصة ير أو عجيبة ولا له فضلا وليس أمرا. قناة كاتت كعسبتها سبسكرايب له سي أي كوسو جاران مخالدة وأن سوق جليو كمبانية كان يتواصل دقون خطق في كوهرية أو دعوة الشر سيد أولو ذاكتو أصحاب تادا قصة دام وحي عبرو تهاي دمان أمد مسلم كجار أهان دتك سوماليات كحيران قناة يوتيوب أصلح أبا صافي. xilligii rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxaa jiray nin ka mid ah asxaabta wuxuuna qabay xaas maalin maalmaha ka mid ah isagoo safar u socda wuxuu ku yidhi xaaskiisa gacaliso waxaan aadayaa safar ilaa aan ka soo laabto safarkayga guriga ha ka bixin wax kasta oo aad bannaanka ka rabto waxaan kuu keenay gurigaaga. gabadhii way ka aqbashay. gabadhii iyadoo raacayso hadalkii ninkeeda ayay albaabka dhexda ka xiratay markuu baxay kadib waxayna iska joogtay gurigeeda. haddaba maalin ayaa waxaa albaabka u soo garaacay walaalkeeda waxayna ku yidhi waayo qofka albaabka garaacayo wuxuuna ku yidhi waa walaalkaaga hebel. way ka furtay walaalkeeda wuxuuna u sheegay inuu aabbaheeda xanuunsan yahay oo uu rabo inuu gabadhiisa arko. wuxuuna u raaciyey aabbe wuxuu ku yidhi degdeg igu imow. gabadhii waxay ku tidhi walaalkeeda abboowe aabbe salaan iga gaarsii una sheeg inaan aad ugu xiisay balse ninkayga wuxuu igu yidhi guriga ha ka bixin ilaa aan safarka ka soo laabto. aniga guriga kama bixi kari amar la'aanta ninkayga. intaas kadib gabadhii warqad ayay u dirtay nebiga sala allahu calayh wasalam oo ay leedahay rasuul alow ma soo booqan karaa aabbahay oo jiran iyada oo ninkayga igu yidhi guriga ha ka bixin ilaa aan safarka ka soo laabto. nebiga sala allahu calayh wasalam wuxuu ku yidhi joog gurigaada oo qaado amarka ninkaaga. haddaba maalmo kadib ayuu ku soo laabtay wiilkii walaalkeeda ahaa wuxuuna ku yidhi aabbe waa saqraad wuxuuna doonayaa inuu ku arko inta uusan dhiman ee abbaaya soo dhaqso. haddana waxay ugu jawaabtay abboowe ma bixi karo amar la'aanta ninkayga. haddana waxay ugu jawaabtay abboowe ma bixi kari amar la'aanta ninkayga. haddana mar labaad ayay rasuulka sala allahu calayhi wasalam warqad u qortay oo ay weyddiisay arrintii wuxuuna ugu soo jawaabay rasuulka sala allahu calayhi wasalam joog gurigaada oo fuli ballantii ninkaaga oo kugala ballamay inaadan guriga ka bixin. saacado kadib waxaa u soo laabtay walaalkeeda wuxuuna u sheegay inuu aabbaheeda dhintay. wuxuuna intaas u raaciyey maadaama uu aabba dhintay bal isoo raac oo soo bax aaskiisa nagala qayb gal. gabadha aad ayay u murgootay wayna oosay ilaa ilinta ay kharisay wejigeeda. waxayna warqad u dirtay rasuulka sala allahu calayhi wasalam una sheegtay inuu aabbaheeda dhintay. waxay weyddiisay inay aadi karto tacsiyada. rasuulkana wuxuu ugu soo jawaabay sidii hore oo ahaa amar la'aanta ninkaaga ha bixin ee gurigaaga joog. sababtoo ah waxaa ii yimid ayuu dhahay nebiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu dhahay nebiga sababtoo ah waxaa ii yimid malakul jibriil wuxuuna igu yidhi gabadha aabbaheeda waa ahlu janno iyadana ilaahay wuxuu u dhaafay dembigeeda sababtoo ah waxay adeecday hadalkii oo ninkeeda oo ahaa ha ka bixin guriga. bal waa su'aal gabar maanta joogta ma samayn kartaa arrintaas walaalahayga? gabar maanta oo ay joogto arrintaas ma samayn kartaa? waa maya. yacnii haddii jirtani arrintaas gabar oo samaynayso boqolkii hal hadduu ku soo baxo waaye haddii oo jiro wakhtigan anaga aan joogno gabdhaha la qabo nimankooda amar la'aantooda ayay baxaan. hadday dhahaan nimankooda guriga ma ka bixi kartid
oo adiga ma hadalkan ileedahay saddexdeeda yaa ifur guriga aniga khabi miyaan ku ahay guriga miyaad iga xabisnaysaa guriga miyaan kuu joogaa aniga adiga waa baxee anigana waa baxayay leedahay yacnii wakhtigan waxaan ku jirnaa run ahaantii wakhti aad iyo aad u xun walaalahayga yacnii gabdhaha waa nimankooda inay ay ka dambeeyaan maxaa yeelay nebiga sala allahu calayh wasalam wuxuu dhahay bini aadam haddii oo la amri lahay inaa oo dad u sujuudaan aniga waxaan amri lahay xaas walba inay u sujuudaan nimankooda laakiin sujuud ilaahay keliya ayaa leh bini aadani looma sujuudi karo walaalahayga insha allah filimkaani waxaa lagu soo turjumay stuudio saafi adinkana markii oo filimkan idin soo gaaro sii sheer gareeya sadaqal jaariya ha idin naqatee insha allah waxa khayrka leh dhan u degdega walaalahayga ee faafiya filimkan waxaan ku soo turjunay stuudio saafi oo ku yaala dalka talyaaniga gaar ahaan magaalada baadabo ee waxaan idin soo turjumay walaalkiina aslax aba saafi like, share, comment.